qisadu waxa ay ka dhacday xaramka waxayna ku saabsanayd markii dad iyagu halkaasi cimraysanayay ay arkeen wiil dhalinyaro ah oo kabcada hooyadii lagu haysta oo cafis ka baryaya iyaduna ay habaarayso. waa cajiib, nin haddaba ka mid ah dadkii goobjooga dhacdadaasi uu ahaa ayaa shiikh uga sheekeeya arrin cajiib ah. waxaanu yidhi, shiikhow sanadkii hore ayaanu soo cimraysanaynay waxaanan la kulannay dhacdo cajiib ah. nin dhallinyaro ah oo ilaa 30 jir aanu ku qiyaasnay ayaa gabadh waxa uu haystay tafta isagoo jilba joogsaday ama marada. wiilkan ayaa haddaba haweenadan waxa uu ku lahaa, waxaynu joognaa kabcada, ilaahayna wuu arkayaa ee cafi. wallaahi ilaahay iga raalli noqon maayo. kadibna wuxuu ku dhawaaqayay hooyo. markaas ayaan ogaanay inay hooyadii tahay. markii dhacdadaasi aanu aragnay waanu ilmaynay oo waanu ooynay. waxaanan la ilmaynay dhacdadan meesha taalla qof kabcada jooga oo hooyadii ka baryaya cafis. waxaanu isweydiinay talow dembiga uu galay muxuu yahay. isaguna wuu ooyayay, hooyadiina way ilmaynaysay. waxay lahayd, ilaahay kaama raali noqdo. dadkii oo dhan kabcada ayay ku wareegayeen wakhtigaasi. isna hooyadii ayuu weli dacalka haystaa isagoo ku celcelinaya hooyo ee cafi, ilaahay ha i dilo hadduu doono ee cafi. waxay ugu jawaabtay mar kale, walle kaama raali noqdo, ilaahayna kaama raali noqdo. kadib waanu ku soo agdhowaanay wiilkii oo weli oohintiisii wata. waxaanan ku nidhi, maxaa ku helay, haweenadanna maxay tahay? wuxuu yidhi, waa hooyaday. markaasaannu ugu jawaabnay, ma hooyadaadii dhabta ahaydba? haa ayuu ku jawaabay. waxaannu ku nidhi, hooyadaada dhabta ah sidaas may samayseen? kadib wiilkii ayaa noogu jawaabay, wax walba oo ay samayso hooyaday gar ayay u leedahay. wuxuu hadalkiisii ku sii daray, hooyaday qalad weyn ayaan ka galay, wayna ay diiday inay cafiso. waxaanan u kaxaystay abtiyaashay, adeeraday iyo weliba ergooyin kale oo badan. cid walba oo aan u kaxaystana ergadoodii way diiday. kadib ayaa waxaan ogaaday inay cibrada u soo baxayso. waanan ka soo daba baxay anigoo isleh, kabcada marka ay tagto ilaahay ayaa quluubteeda nuglayn doonaa oo way ku cafin doontaa. waa maalintii saddexaad ee aan u soo raaco duwaafka kabcada ee ay diido inay cafiso hooyaday. waxaanu ku nidhi wiilkii, noo tilmaam, annaga ayaa ergo ka gelayna arrinkani. kadib waxaanu isku raacnay gurigii islaanta ama hooyada wiilkaasi dhashay. waanu galnay gurigeedii, waanan salaannay oo waxay noo soo dhowaysay si fiican. waxaanu u sheegnay inaan erge ilaahay kaaga nahay wiilkaaga maxamed, annagoo joogna weliba dhulka barakaysan. waxay noogu jawaabtay, ilaahay ayaan idinku dhaashay arrintaasi ha soo dhexgelina. dhacdadan ka dhacday kabcada ay naga wareerisay. kadibna wiilkeeda aanu la kulannay oo aanu arrinkan nala wadaagay, inkastoo aanu dhacdadaasi dhabta ah aanu nala wadaagin oo idindhex martay adiga iyo isaga. hooyadii ayaa noogu jawaabtay, marnaba anugu ma saamaxayo. wiilkii maxamed ayaanu haddaba u yeedhnay oo agteenaan soo fadhiisinay isagoo weliba ilin ay ka qubanayso. waxaanu ku nidhi, hooyadii wiilkaagu sidan ayuu u murugaysan yahay. sow ma aragtid, iska cafi miskiinkan, hurdo kama suurtoodo ee cafi. bal eeg wiilkaaga sida uu u ekaaday. waxay noogu jawaabtay, ku darso, weliba waa madi, ubadna isaga ayaan ka dhalay. haddaba waxaa cajiib nagu sii noqotay sida ay hooyadani ay u sheegtay in wiilkeedu umadi yahay, iyo weliba sida ay hooyadani uga cawalgooday wiilkeeda. maxaa dhex maray? maadaama hooyo beer jilec lagu ogaa ayaanu isweydiinay. waxay noogu jawaabtay, iweydiiya, waxaan ugu xanaaqsanahay oo aanan u cafinayn weligay. hooyadii ayaa sheekadii bilowday, waanan dhagaysannay. waxay noo sheegtay in aabbihii dhintay isagoo aan 5 sano gaarin. wax walba isaga ayaan uga tegay, xitaa inaan guursado. lacagtii yarayd ee aabbihii nooga tegay isaga ayaan ku soo koriyey. waan soo barbaariyey, waxaanan ku qasbanaaday inaan u xamaalo si aan isaga u koriyo. weliba waxaan noqday harqaan leh ama dawaari leh dharka tola. waqtiyada qaar guryaha ayaan uga soo shaqayn jiray si isaga noloshiisa aan u dabaro. isagana bal weydiiya. wiilkii ayaa ku jawaabay, sadaqtu, hooyaday run ayay sheegaysaa.
hooyada ayaa weliba iyadoo wiilkii la garanaqsanaysa waxa ay ka markhaati furtay habeenkii dharka matolo jiray oo dartaa muraayad indho ma u qaatay wax kasta oo ay weydiisay haa ayuu ku jawaabay isagoo ooyaya halka ay hooyadiina ay iyo laftigeedu ilmaynaysay markaaga guuriya lacagtaydii ayay haddana weydiisay haa ayuu yidhi gurigayga ma ku dejiyey ayay ku tidhi haa ayuu ku jawaabay been haddaad sheegayn u sheeg ayay tidhi dadkan ma ku soo koriyey si aan taajirinta ilmahooda loo soo karin gaari ma kuu iibiyey haa ayuu ku jawaabay haddaba weydiiya waxa isagu ugu xanaaqsanahay weydiiya sababta aan u diiday inaan cafiyo isagoo u weliba madigayga keliya ah ee aan ilma ka haysto waxay tiri hooyadii markii uu muddo wiilkaygu xaas lahaayee xaaskiisii waxay bilowday inay mar walba iga dacwooto iyada oo aan doonayn inaan guriga la joogo anigu waan aamusnaa aniga oo ka qarinaya wiilkayga wax walboo dhacay iyo dhib walba oo ay iyadu ii geysanaysay mar walba waan iska aamusi jiray aniga oo arkaya inay xaaskiisu igu soo diraysa wiilkayga ilaa ay gaadhay in ay noqotay in guriga layga saaro oo daaradda guriga layga dhiso aqal oo aan seexdo gurigii ninkaygii iiga dhintay ayaa layga soo saaray gurigii aan ku soo koriyey ayaa layga soo saaray meeshii yarayd ee aqal soomaaligahayd ayaa sariir lay dhigay oo marna aan ku qado marna wax laygu siinayey haddana maalin walba wiilkaygu wuu canaanan jiray iyadoo oo mar walba leh hooyadaa ayaa caysay ilaahay ayaan ku dhaartee aniga oo aan arkin xaaskiisa ayay igu diri jirtay isaguna idagaali jiray ma garan kartaa hooyo ayay nagu tiri sababta aanan u cafinayn wiilkayga markii ugu dambaysay wuxuu igu soo galay meeshii aan jiifay aniga oo tusbax gacanta ku haysta isaga iyo xaaskiisii oo isdaba socdo oo ay ku leedahay hooyada ayaa sidaa igu samaysay oo anna aan u jawaabayay isaga oo aan ku leeyahay hooyo waxaas igama suurtoobi karaan ayuu intuu kabtahay xidhnayd xaaskiisu kala baxay ma garan karta hooyo wuxuu igu sameeyey hooyo ilaahay ayaan ku dhaartay kabtii ayuu afka igaga dhuftay oo uu ii dilay si uu xaaskiisa u raali geliyo taas ayaa haddaba waxay saldhig u noqotay in hooyadaasi ay diiday inay cafiso wiilkeedii madiga ahaa waana qiso lagu cimri qaato oo la xidhiira in waalidka raalli ahaanshihiisa la raadiyo oo aan lagu xadgudbin haddaba la soco qisooyin kale oo iyaguna sidan oo kale ah